bixino jaac siyaad haday tahay iyo deegaanka tuula sabakab iyo jaac siyaad iyo dhulbahaante iyo cidii la degtay deegaanka kan degtaaba saaka waa kuwa inii muuqda jamaahirta waxaan u sheegayaa jooga tuula sabakab inay boor qaadaan wax allaale wixii ina sharaf dhac iyo karaamad darro inoo keenay waa inaynu boor qaadnaa wax ka horeeya midnimada iyo talada ay wadaan garaadadu iyo go'aanka qofkii ku bayra ee deegaanka waxa weeyaan anaga maaha odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan degmada tuula samakaab ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona raaligelin ka bixiyey qaar ka mid ah odayaasha oo ay Soomaaliland shalay ee ka duubtay muuqaal ah taageerada ee Soomaaliland odayaasha warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hadalladaas iyo qaar ka mid ah ay Soomaaliland adeegsanaysay aysan raali ka ahayn iyagoona arrintaas ka hadlay waxaan hadalladoodii ka mid ahaa adoonka ka curtay gobolka Sool waxaan u tacsiyeenaynaa dhammaan wixii ku dhintay dadkii madaxtuubka loo dilay dadkii xaqdarrada lagu dilay dadkii markay bannaan baxeen oo dareenkooda muujiyeen oo jamhadda SNM ee argagixisada dadka ay xasuuqday ay ka kaceen dadkii sida badheerka ah loo toogtay ee loogu sabaaxay ayaan u tacsiyeenaynaa wixii dhintay waxaan leenahay samir iyo iimaan wixii dhintay wixii dhaawacnayna waxaan leenahay allaha shaafiyo jamaahirta kacdoonka ka bilowday gobolka Sool waa u hambalyeynayna dhammaan mowqifka ay taagan yihiin deegaan kasta oo ay leedahay SSC maanta waxay sugayaan gobolada SSC dhammaan waxay sugayaan shirka ka socda gobolka Sool ee ay hogaaminayaan isimada ee uu gogosha dhigay Garaajac Garaad Ismaaciil iyo guddidii u magacaabay ee 33 ka ahayd dhammaan isimada isu yimi ee gobolka Sool ee gobolada SSC meel kasta ay ka yimaadeen iyo qurba joogta iyo waxgaradka waanu hambalyeynayna waxaan leenahay guul baanu ka sugaynaa wixii ka soo baxana waa la wada ogyahay mowqifka shirkaas way iska cad yahay waxa weeyaan in la iska xoreeyo jamhadda SNM weeyaan wax kale oo meesha yaala ma jiro deegaanada SSC waxay sugayaan oo kaliya shirka isimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo 33ka guddida ee loo magacaabay go'aankooda baa la sugayaa shirkiina waa gabagabo ilaa maanta maanta waa 1 ilaa bisha 3deedana insha Allah waxaan rajaynaynaa guul iyo gobonnimo inay ka soo baxdo iyo wax lagu naaloodo halkan qaryadan aan maanta taaganahay waa Sabakaab waxay u jirtaa dhowr iyo 40 kilomitir gobolka Sool waxayna sugaysaa oo diyaar u tahay oo heegan u tahay go'aanka ka soo baxaya gobolka Sool ee isimada iyo waxgaradka iyo guurtidu ay ka soo saarayso 33ka ayay diyaar u tahay heeganna u tahay wixii ka soo baxaana la qaadanaya marka waxaan leeyahay ha israacdo SSC ha israacdo SSC ha israacdo SSC waa ku raacinayay shalay magaaladan waxaa ka dhacday xoogaa shaqaaqa ah magaaladan xoogaaga shaqaaqada ah waa ka raali gelinaynaa ee ka dhacday shakhsiyadaas garabay ahaayeen magaaladu way iska eriday hadday iska eridayna waxay galeen xerada askarta magaalada way rasaaseeyeenoo gabadh baa ku dhaawacday ilaahay gabadhaha caafimaadiyaan leenahay ina Cumar Guray ilaahay gabadhaha caafimaadiyaan ku leeyahay waxay la mid tahay jabaahiirtii kacday ee ku dhaawacantay ee ku dhimatay gobolka Sool bay la mid tahay marka Allah caafimaadiyaan leenahay arrintaas xerada askarta iskoolka meesha tababarka iskoolka oo waliba shalay ciidamo la keenay oo ay ku mashxaradayeen ciidamada socda ay ku mashxaradayeen oo macnaha ka dhigteen ehel ayay arrintaa noogu sameeyeen marka waxa weeye wixii soo abaabulay iyo iyagaba waanu cambaaraynayna waxaan leenahay dadka u dhashay ee ku jira ciidamada Soomaaliland ee deegaanka ha sugeen go'aanka soo baxaya kii SNM raacaya iyo kii kalewba sugaanu leenahay annagu wixii SNM raaca qashika waa qashin Hargeysa laga soo raray iyo Burco waa iska xaaqaynaa magaalo kasta qashikaaga yaala iska xaaqaysa waxaan u raali gelin ka bixinayaa shaqadii shalay ka dhacday ee ay ku dhaawacantay Xaliimo Cumar Guray ilaahay ha shaafiyo halka ka dhacday ee foosha xumayd ayaan anigu raali gelin ka bixinayaa waxaan raali gelinaynaa
maadaama aanu nahay jaamac siyaad waxaanu taageersannahay gogosha aanu dhignay ee uu dhigay garaad jaamac garaad ismaaciil gogosha uu dhigay baanu taageeraynaa maadaama aanu gogoshii dhignay haddaanu nahay jaamac siyaad wixii xunxun naga soo baxa waxa weeye waa wax fool xun arrintaa raalligelin baanu ka bixinaynaa gogoshaasaan taageernay gogoshayadii baa lagu fadhiyaa garaadadaa ku fadhiya iyo 3 waxa ay soo saaraan baanu taageernay arintaasaanu taageernay wixii wax ka bedelan soo saara meeshay yihiin waa la garanayaa cidda yihiinna waa la garanayaa waxaan hadalkaygii kaga baxayaa arrintaana islaantaana ilaahay caafiyo arrintaana shalay dhacdana raalligelin baanu ka bixinay garaadadaanu ka raalligelinay gaar ahaan haddii aanu jaamac siyaad wax fool xun gogoshaydii aagayga ka dhacday garaad jaamac garaad ismaaciil oo gogosha dhigay ayaanu sii raalligelinaya garaadada la fadhiya oo gogosha dhigaanu sii raalligelinaa haddaanu nahay dhulbahante ujeeddadayadu waa midhkaa dadka xun annaga nama mateleen annaga dhulbahantanimaana deeqda dhulbahantanimaa annagana deeqda wixii dhulbahante ka soo gaanuna ka gowracna ku go'naa waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa cuqaasha odayaasha garaadadayada halkaa fadhiya ee sharafta leh ee wanaagsan guddoonka ay halkaa noogu guddoomiyaan baanu ku gowracana waxaan ku darayaa midhkaa anan hadalka soo koobaya waa qorrax baa la taagan yahay hadalkuna wuu badan yahay waxaan midhkaa ku darsanayaa haddaanu nahay dhulbahante annagu qori baanu naqaanaa dad intuu wax baranayay qorigaanu naqaan qoriga ii keena weliba qorigaanu naqaan intii dad wax baranayay annagu qori baanu ka barannay meelna wax kamaanu soo qorigaan baanu annagu ka naqaanaa qoriga iyagana waa haysanaa rag iyo dumar waanu wada haysanaa war Soomaaliland miyaynu rabnaa waa wixiina aynaan rabin miyaynu rabnaa gubaysiga miyaynu rabnaa ma rabno gubaysiga ma rabno kaasaa ka shaqaynaya waddanka yaga rag iyo dumar heegan baanu nahay jaamacadaha waxaanu uga soo baxnay rag iyo dumar waa qori halkaasaanu rabnaa inaanu dhiganno halkaasaanu rabnaa inaanu dhiganno odayaashii shalay halkaa ka hadlay aflagaadayn mayno annagu odayaashii halkaa shalay ka hadlay waxaa weeye dadna matelamay ahayn dadna matelamay ahayn nama mateleen waa miyayna mateleen nama mateleen annaga waxaana matela dhulbahanta wayna wixii halkaa ka soo gaamiyo baana matela magaalada aanu joognaa waa samakaab waa degmo haddana waa degmo beriga tuwa samakaab baa loola jiray waa deegaanka qura ee jaamac siyaad ugu baaxadda weyn leh waa magaalada qura ee jaamac siyaad ugu baaxadda weyn leh magaalada weeyaan eegan gobolka marka waxaanu hadafkaygu taageersan yahay gogosha la dhigay ee garaadada go'aanka ka soo baxaya inaannu sugayno oo ku qowlannahay waxalaay shaqaaqadii shalay nagu dhacdayna aad iyo aad baanu raaligelin uga bixinaynaa garaadada iyo deegaanka inta baanu uga siinaynaa waxa ka horeeya midnimada iyo talada ay wadaan garaadadu iyo go'aanka qofkii ku baydha ee deegaanka waxa weeyaan annaga maaha war innaga miyuu yahay ku hadlay afka dhalinyarada jamaahiirta tuula samakaab ahna hogaamiyaha jamaahiirta dhalinyarada tuula samakaab waxaanu sheegaynaa inaanu taageersannahay shirweynaha dhulbahante iyo mabda'a dhulbahante maanta aaminsan yahay gogosha dhulbahante wixii ka soo baxay ayaanu aaminsannahay dadkii shalay meelaha ka hadlay waxay ahaayeen dad iska askara iyo dadka xoolaha noo raaca oo noo dabamaray oo dad askari u tageen iyo dad oramo afka la baray sidaa darteed waxaanu nahay dad dhulbahantinimada aaminsan wax dhulbahante ka hooseeyana annagu kuma qanacsanin SNMna maanta aanu wada hadal la jiran wax diyaar aanu nahay ma jirto dalkayaga waanu ka saaraynaa warasal miyaynu doonaynaa maanta wuxuu dhulbahanta yahay baanu nahay annagu sidaan idin sheegayba aragtideedu waa sidaa waxaanu leenahay dhul shay ruux ka yimi dhunaqaate ma ogolin dhulkan aanu leenahay dhiiggaanu huraynaa dhiigga dhaqanka iyo ismada dhawaaqooda sugana dhaqanka iyo ismada ayaan dhawaaqooda sugaynaa annagoo dhulbahantaha dhalinkiisi baan dhimashaan diyaarnahay dhimasho annagu waxaanu nahay SSC waxaanu raacsannahay shirka ka socda gobolka Sool garaadadayada iyo 3 guddida annagu aan idmanay ee aanu dirsannay wixii shalay halkaa ka dhacay annagu kulamaanu socon kulaman aanu jirin nimanna matala ma ahayn niman Soomaaliland berisar ka soo qaatay bay ahayn oo biidha qaatayaala oo aan goonnimada ay maanta noo horsadaan aan ka soo waaqsan karin waxaanu u sheegaynaa dhulbahanta weyne iyo fiqishiniba iyo guddida halkaa fadhida waxaan u sheegaynaa inuu jaamac siyaad shirka halkaa yaalla ku gowracan yahay wax allaale wixii ka soo baxay ku gowracan
qof baanu diyaar u nahay safkaanu u dhiganaynaa 20 jirka 10 jirka 60 jirku kulli waa diyaar waxay u yihiin idoon inay iska saaraan iskana saafigarayaan jamaahiirta waxaan u sheegayaa jooga tuulo samakaab inay boor qaadaan wax allaale wixii ina sharaf dhac iyo karaamad darro inoo keenay waa inaynu boor qaadnaa oo aynu waajibkeeda ka gudaynaa waxaan ka hadlanaa raggii afarta ee magaalada shalay ku gafay ee labada gaf geystay raggii magaca jaamac siyaad ku gafay iyo magaca degmada ku gafay tuulo samakaab raggaa waxaan ku cambaaraynaa inayna degmadana matalin jaamac siyaadna matalin jaamac siyaad waxaa matala garaa jaamac matala laba jaamac siyaad garaa jaamac matala jaamac siyaad garaa jaamac matala ma matala garaa jaamac kalena garaa jaamac inoo matala jaamac siyaad waxaan u sheegayaa raggan afarta isku soo kaxaystay inaynan matalan jaamac siyaad degmada tuulo samakaabna matalan markii magaalada laga baxsadayna ayadaas isku soo duubeen ayaduma tuulo samakaab bay noqotay ayaduma tuulo samakaab bay noqotay maya mowqifkayga horta annagu wuxuu ka saabsan yahay ama aanu nahay wix allaale wixii ay garaadada halkaa jooga ee uu gogosha dhigay garaajaaca garaad ismaaciil shirgudoonkana uu yahay garaajaaca garaad cali gudoomiye 33 xubnood ee loo doortay ee uu u yahay chairmanka maxamuud salaad wax allaale wixii ay soo saaraan ayaanu taageersannahay subaxiina ku dhaqaaqanaa waxaanu kale oo halkan aanu kaga hadlanaa oo aanu sheeganaa shalayto waxaa ka dhacay arrin yaroo foolxun oo niman askara oo ciidana oo la yaqaano ay sameeyeen oo laga soo abaabulay hargeysa iyo laascaano gooja cadde hargeysa iyo gooja cadde laga soo abaabulay waa niman askara maryaa loo soo geliyey waxaa la yidhi orda oo samakaab saxaafad ku qabta deegaanka jaamac siyaad oo dhan meel kastana waa laga soo baaciyey annana markaanu halkaa ka baacinay ee magaaladii laga saaray ayay waxay ku qabteen xero ciidan oo shalayto weliba tikniko culus annaga nala soo duldhigay deegaan ahaan markii la arkay kalsoonidayada iyo halkaanu taagannahay iyo mowqifkayaga iyo inaanan somalilan rabin ayaa ciidan gaara nala duldhigay ciidankii ayay u tageen waa 4 nin waxaan annagu garananay magaaladana waxay ka yihiin ilaahayna waa og yahay ummadduna waa og tahay annana waa ognahay dadku waa ogaan doonaan wixii aan qolo waa baran doonaan waxaanu la rabnaa waxaanu halkan diyaar ula nahay inaanu raaligelin ka bixinno oo aan raaligelin ka bixinno jaamac siyaad hadday tahay iyo deegaanka tuulo samakaab iyo jaamac siyaad iyo dhulbahante iyo ciddii la degtay deegaanta kan degtaaba saaka waa kuwa inii muuqda
عمر قال الدور كهذا وكل دولة نودا صوماليا ما قرنا أيوه صابت صوماليا نين حسن الشيخ محمود اللي هذا يدورته حسن الشيخ محمود نوحون نقضي يعني أرجي وهو جامين أيوه دكت هيو مدحوينها أساسا محاول كل هذا إسماعيل عمر قال ودكت هيو تما نافك أبو الله مرة دكت قبض كل ما يشرت اللي هذا يساسو معها إسماعيل عمر قال أيام ما ها كنا وحاول إسماعيل عمر قال لي من كسرت إنه شركة سلي سلي أسامة يسارين تلا شركة سلي والو كركعي محمد يسوق مكين شركة سوالف ما غير والو كركعي ها إثيوبيا موقف بيسو استاكتي أنت لا سعانو وات جيبوتي موقف بيستاكتي موقف كي جيبوتي أيوه حسن الشيخ محمود نكون راعي وحيولي إسماعيل عمر قال لي وحن والبهار يولع بدن كقبنا وأن آد يعني مارتي وعبسي قبنا إن أرهنت قبل كسول أي حاسلوني جود وجيس كأفريقيا هرسيتو هدي أي سيدان كوسي سعوتو oo ay sool ka go'do Somaliland marka waxa sida daraadeed arintan waan ku dhex jiraa aniga Ismaaciila oo salaadiintii beesha dhul bahantay waan la hadlay salaadiintii meel wanaagsan baa wax noo marayaan go'aamada shirka ka soo baxay wax walba ku xidhan yihiin waxaanu doonaynaa shirka bal haday suuragal tahayna in dib loo dhigo yaa ka socdo shirkan socda in dib loo dhigo oo aan maxaan ku yiraahdaa to shirkeena ka soo saaro in halkaas la joojiyo shirka kadib aniga odayaasha aan isugu yeero meesha la yiraahdo Djibouti ay yimaadaan intay ka soo tagaan ka Muuse uu yimaado maxaan ku yiraahdaa to meesha la yiraahdo Djibouti isna uu yimaado halka aan ku wada hadashiyo kadibna iyaga oo wada socdo isku dhan shirkii laas caanood inay halka ka sii ambaqaadaan وهذا كسالو سيول ها يعني شركه هذا ديب aan u dhigno inagoo dawladda dalka safka hore arrimaha Soomaaliya shirkan waa inaan dib u dhignaa oo mid Djibouti aan soo hor hadii shirkani uu dhaco oo dhameystirmo oo go'aamo ay ka soo baxaan annaga oo aan maarata ku dhex jirin qarax baa dhacay sida daraaddeed waxaan rabnaa in hawshan la joojiyo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh wuxuu yiri waa sax Itoobiya maxay حسن شيخ وصح وقرب استاجي دورك دغا انت اسماعيل يا ان شركه اللي جوجيه halka shir lagu qabto Djibouti shirka loo bedelo ama loo raro iyo Muuse shirki yani maxaan ku yiraahdaa SSC in la yiraahdo shirka Muuse iyo maxaan ku yiraahdaa iyo isimada Djibouti loo bedelo yani halka la isugu tago okay mowqifka markuu soo jeediyay Xasan Sheekhna ku raacay أبي أحمد علي رئيس الوزراء إثيوبيا يا ديدي waxa arurtana loo laba yimaado wax dad la fahmi kara la kaaleeyo muxuu qabaa soo marka isaga waxa uu qabaa wuxuu yiri shacab la cadaadiyo oo culays la saaro oo la isku dayo in la caburiyo anaga kasoo wuxuu yiri ku soo waayay aragnay buu yahaa sida daraadeed shacabkan aayahooda iyo masiirkooda ayaga ayaa iskale meeshay rabaan hal aadaan geedaha dhaladooda haday la fuulaan ay ku qabsan kartay ma jirto sababtoo ay idinku waxaan waayay arag baa u ahayn oo idan khibradeeda lahayn oo saameynta iyo mashaqada ka dhalan doonta aydan ogeyn yaad ka hadlaysaan waxaan leeyahay buu yiri shirkaasi xurriyadiisa hal loo daayo dadka xurriyadooda iyo masaalixdooda iyaga yaqaan haday Muuse la aadayaan haday Puntland la aadayaan haday dawlad madax banaan oo jamhuuriyadda Khaatumo soo la yiraahdo haday samaysanayaan maxaan ku yiraahdaa yani waxay rabaan iyaga haday samaysanayaan waa wax iyaga u gaara xasiloonida amniga iyo nabadda geeska Afrikana halkaas ay laga xukumaa mar walbana waxaan ka soo horjeednaa dariiq kaste oo dadkaasi saameyn loogu yeelanayo ma garanayo buu Ismaaciil Cumar Geelo waxa adiga kaaga xidhan sool iyo sanaag soo garan markii dadkanu hawshooda qabsadaan ee ay tooda iyagu dhameystaan ee ay waxooda sameystaan cidii dani kaga xidhan tahay marka iyada hal maaragtay hal dhil garayso laakiin aan caburino aan hor istaagno aan u dawladeyno aan maxaan ku yiraahdaa culays caalami ah saaro ma qaadi karaan buu waxaas mana aqbalayna marnaba wata jaamco halka markay marayso
اللي ليه هي مدحوين حسن شيخ محمود مدحوين إسماعيل عمر قال مدحوين موسى بيحي واسكو موقف لليه أو مدحوين إسماعيل عمر قال هو شاطي إيجاد إنه أرنت الحد هذه رسول يومارتي سوماليلاند oo gogol dhiga Djibouti halkaana lagu wada hadlo reer sool halka ay taagan yihiin la wada og yahay xoolahooda iyo maartay caruurtoodaba isimada hadda ku shiraya laascaanood waa in Soomaalida waan ogeyn siyaasadda waxay maaday irisim iyo daaradisi wax noocaas ah jiray oo madaxweyne xasan maxamuud iyo Muuse Biixi iyo Ismaaciil Cumar Gool isku xirxamanay isimada hadda ku shiraya laascaanood ma ku kalsoonaan karaan madaxweyne Muuse Biixi in uu daacad ka yahay dhexdhexaadnimada maartay ama doorka dhexdhexaadnimada hadda uu maartay qaatay chief caaqil Ismaaciil Cumar Gool waxa horta madaxweyne la yiraahdo oo Soomaaliya hadda anigu aan Soomaalidu ay leedahay qaable ma jiro wada chief caaqil lawey Ismaaciil Cumar Gool waa full chief caaqil Xasan Sheekh iyo igaliya Muuse waa sub chief caaqil lawey saagara saddex chief caaqil weeyaan marka saddex chief caaqil waxa hawlaha dhulbaantay ay ka maartay ka gali karaan ma jirto Soomaalidu way isogtahay xaqiiqda marka laga hadlayo irir oo isbahay The amazing Epson Fast Photo Scanner, the easy way to preserve all your precious photos. You can even get rid of red eye and enhance the color so faded photos look sweet. Look at you in the bathtub. isbahays siyaasadeed ah in beel Soomaaliyeed la isku dayo in maaragtayto lagu cadaadiyo leeyahay qasab isbahaysigaas uga mid noqda wax shaqeynaya ma aha soo aagara dhulbaanta hadday reer yihiin iyo hadday dawlad yihiin iyo hadday maamul yihiin iyo hadday xisbi yihiin ba ayaga aayahooda leh hadday beel raacayaan beesha ay yihiin dadkuna waa yaqaanaa iyaguna waa is yaqaanaan niman hadda waxa yihiin loo sheegahay ma aha oo marna Oromo ma noqonayaan marna Israa'iil ma noqonayaan marna maxaan ku yiraahdaa Ibn Hashim iyo Saudi miyuu ahaa ma noqonayaan waa dad meel loogu soo hagaagan la yaqaano oo halka ku maartay isman way ninkii marka isagu raadinayo wax kale waxa maartay aan hawl maartay Soomaaliya u talaba ahayn raadinayna waa goonidiisa waxa leeyahay marka arintan wax irir leeyahay oo Soomaaliya ka shaqeynay ma jiraan haba yaraatee shirkii Djibouti waxaanu ka soo bilowdeen soo agara meel lama gaarayaan waxa way haday iyagu isku anfacayaan iyaga u taala ka soo tag marka Ismaaciil waa waxa qofka waxan wada way Ismaaciil waa ninka waxan wada way Ismaaciil Soomaaliya inuu burburiyo ayuu ugu talagalay oo aanay noqonin Soomaaliya dawlad waa cadawga koobaad labaad saddexaad afraad ilaa boqolaad ee ay Soomaalidu leedahay waa Ismaaciil Cumar Gool not shacabka Djibouti waxaan ka hadlayaa ma ciidankiisa loo yaqaan heer shacab isagana waa ciidan Soomaaliyeed waa wiilal Soomaaliyeed anigu Ismaaciil baan ka hadlayaa ciidanka Djibouti iyo shacabka reer Djibouti kama hadlayo laakiin Ismaaciil Djibouti buu la digay oo burburiyay oo ka dhigay shirkad uu isagu leeyahay Muusana wuu ku darsaday wuxuu taagan yahay Somaliland waa Djibouti Djibouti waa Somaliland Somaliland waa Djibouti Djibouti waa Somaliland buu taagan yahay isaga mowqifka uu wataaba kan aba annagana waxaan leenahay waa beenta sool sanaag iyo cayn waa xor lama joogi karo lama khasbi karo nin ayna rabin koob shaaha kama cabi karo dhexdooda xaqiiqda laga hadlaa haddaad qabiil ku socotaan iyo reeraad ku socotaanna dhib male soo socda waxaad ka heshaan badleediin Soomaalidu wali qabiil uma ayna diriirin soo agaran waaba khayaali la iska dhaadhicay kooyis aashanka dawladda Soomaaliya ee burburtay baa leeyahay reer baa kan ahaa oo maxaan ku yiraahdaa tookano reeraha laga adkaaday la buriyay oo seen oo la baxsaday oo khayaaliga iyo beentaas dad moogtahay ku hadaaqaan Soomaalidu bal hays diriirtay haddaad wax isla haysaan geed kaad gaadhaan mid ka goosta Ismaaciil Cumar Goolna waxaan leeyahay waxa aad ka dhaxwada Soomaaliya kaaga ma soconayaan ismadu ma aqbali doonaan